بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إن شاء الله تعالى وحان بلابي دونا دروس كساب سن رمضانك رجيني إن شاء الله wixii ilaahay naga garsiin aan ka sheegno muxuu ahaa si ummadda muslimiinta ah meel bay joogaan ay bisha ramadaanka ay kaga faa'iideystaan. Maanta waxaan ku bilaabi doonaa soo dhaweynta bisha barakeysan ee ramadaanka. Qaabkeen u soo dhaweynaa maxaa muhiim ah in bisha lagu soo dhaweeyo. Waxaan rabaa inaan dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan walaalahayga Soomaaliyeed la wadaago dhowr qodob oo aan isleeyahay aad bay u haboon tahay in lagu soo dhaweeyo bisha barakeysan ee ramadaanka. Qodobka koowaad wuxuu noqonayaa inaan ku soo dhaweyno ramadaanka ugu horreyn Ilaahay barino subxaanahu wa ta'ala inuu Ilaahay ramadaanka ina gaarsiiyo, in la bariyo Allah lagana bariyo in ramadaanka Ilaahay uu ina gaarsiiyo. taa ayadana waxay ku sanaysaa qofka muslimka ah inuu had jeer u yahay qof cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jecel ee aan ka hanaynin. dadka qaar laga yaabaa markii ramadaanku uu soo dhawaado oo ramadaanka soo dhow dad baa laga yaabaa in aad iyo aad runtii arinta u dhibto yiraahdaan hadduu loo naga tagay goormuu yimid. laakiin qofka muslimka mu'minka khayrka jecel had iyo jeer wuxuu u hiloobaa bisha barakeysan u hiloobaa. saadart markii Ilaahay laga bariyo oo la Ilaahay ramadaanka ina gaarsii waa waxaan nabigeena kaga deerin Kaleey salaatu wasalaam. nabiga wuxuu dhihi jiray markii uu soo gaaro bisha Rajab wuxuu dhihi jiray Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadan. Ilaahay wuxuu dhihi jiray bisha Rajabna Ilaahu noo barakee, Sha'banka Ilaahu noo barakee, Ramadaanka Ilaahu na gaarsii. saas uu dhihi jiray nabiga Kaleey salaatu wasalaam. marka waxa muhiim in Ilaahay aynu ka barino in Ilaahay ramadaanka uu ina gaarsiiyo. taayada waa muhiim. waxaan ku soo dhaweynaa Ilaahay bariis lagu soo dhaweeyo Ilaahay ramadaanka ina gaarsiiyo. qodobka labaad wuxuu yahay ramadaanka marka aynu gaarno in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inu kaga mahad celino. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa malaayiin ummad ah oo muslimiin ah inaysan bisha ramadaanka aysan gaarin. waxaa laga yaabaa dad ramadaankii hore nala soo soomay midka maanta joogan aysan la joogin. marka saadart waxa qofka muslimka markii uu gaaro bisha barakeysan ramadaanka waxa rabaa in Ilaahay uu ku shukriyo Ilaahay wada mahad iska leh. maxaa yeelay waa bil khayr badan wanaag iyo qiimo far badan leh. marka Ilaahay in loo mahad celiyo aad bay muhiim u tahay. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in muxuu ahaa qofka muslimka uu ku farxo in lagu farxo bish oo aan laga nixin aad bay muhiim u tahay. taana waxaan kaga daynaynaa nabiga Kaleey salaatu wasalaam aad ayuu ugu farxi jiray, asxaabtiisu ugu bishaareyn jiray, iyaga laftan aad bay u farxi jireen, saas ay waligood ahaan jireen. marka waxa muxuu ahaa 6 biloodna waxay Ilaahay ka bari jireen in bisha ramadaanka Ilaahay uu gaarsiiyo. 6da kalena Ilaahay waxay ka bari jiray Ilaahay inuu cibaadada ka aqbalo. sidaa awgeed marka waxa rabaa qofka muslim inuu ku farxo. maxaa yeelay waa bil qiimo badan oo aad iyo aad khayrka ku dhex jira iyo muxuu ahaa qiimaha ay leedahay muxuu ahaa ay nahayn wax la soo koob karaysan ahayn. oo qofku waliba nabiga uu leeyahay salaatu wasalaam hadii qofku ogaan lahaa waxa khayr ah oo wanaaga oo bisha ramadaanka ku dhex sugan wuxuu jeclaan lahaa ramadaanko idil in muxuu ahaa sanadko idil in ramadaan ay ahaa taas uu jeclaan lahaa. marka waxa muhiim in muxuu ahaa aynu ku faraxno bishaada oo aan laga nixin. qodobka afraad wuxuu noqonayaa sidoo kale in ay muxuu ahaa bisha marka Ilaahay uu ina gaarsiiyo inaynu sameysano qorsho cibaado ah inaynu sameysano waa muhiim. inaynu muxuu qofku go'aan uu la yimaado iyo qorshe uu la yimaado uu kaga faa'iideysto bisha aad bay muhiim u tahay. waxa laga yaabaa dadka barkood in muxuu ramadaanka uu yimaado inuu iska idlaado isagoo aan waxba ka faa'iidin. saad waxa muhiim qofka muslim inuu qorshe uu yeesho in muxuu ahaa cibaadadiis uu laba laabo
in salaada uu muxuu aad u badiyo in quraan akhris uu badiyo inuu qorshe uu sameeyo ramadaanka markii uu yimaado in qorshihii ugu wanaagsanaa inaad samaysato aad cibaado ah oo aad kaga faa'iideysan lahayd dadkan adduunyada maanta sida adduunka loo qorsheynayo ee loo qodobeynayo waad aragtaa laakiin arrimaha aakhira ku saabsan iyo ilaahay xaggiisa muxuu ahaa aakhirada diyaar garowgeena aad buu u liitaa marka waxaa muhiim ah inaynu la nimaado qorsho iyo go'aan inaan liman waa muhiim oo aad tiraahdo waxaa laga yaabaa ramadaankan inuu yahay kii kuugu dambeeyey waxaa kaga faa'iideysa marka sidii kii kuugu dambeeyey oo kale inuu yahay oo kale lagu yiri mid ka dambe ma gaari doonto oo kale yaa la rabaa inaad kaga faa'iideysto laakiin haddaad is tiraahdo waa iska ramadaan oo keliya sidii dadka uun sameeyaan iska samayso waxaa laga yaabaa kan soo aadan inaysan waxaa laga yaabaa waqtiga uusan ku gaarsiinin yaa laga yaabaa marka go'aan iyo qorsho la imow oo ka faa'iideyso qodobka shanaad wuxuu noqonayaa sidoo kale in muxuu ahaa acmaasha wanaagsan badinteeda lagaga faa'iideysto maxaa yeelay acmaasha muxuu cibaadada ilaahay muxuu ahaa in qofka acmaasha la qabto bisha barakeysan gudaheeda ramadaanka la qabto waa acmaal ilaahay uu laba laabayo saa awgeed waxaa muhiim qof walba inta uu qaban jiray bilaha kale wax ka dheeri inuu qabto si uu u helo cibaado laba jibaara si uu u helo aad bay muhiim tahay muxuu acmaasha wanaagsan uu ku dadaalo qodobka lixaad wuxuu noqonayaa sidoo kale inaynu fahamno muxuu ahaa qofka fahamka ahkaamta ku saabsan ramadaanka in ahkaamta ku saabsan uu qofku uu fahmo oo cilmi u yeeshan aad bay qaali u tahay haddii kale waxaa laga yaabaa qofka inuu iska sooman yahay muxuu haddana soonkiisa u yahay soon aan loo baahnayn nabigu uu yiri calayhi salaam midkii muxuu ahaa soonkii muxuu ahaa xadiiska calayhi salaam man lam yadac qawla zuur wal amal bihi falaysa lillahi haaja fi an yadaca dacamahu wa sharabahu marka qof oo iska muxuu ahaa ramadaankiisa aan ilaalinaynin ee aan bal la soconin waxa ramadaanka ka haleynay waxa uu hagaajin uusan aqoonin ka isagana qof wanaagsan ma marka waxa muhiim in qofku ogaado acmaasha ku saab muxuu waxyaabaha ku saabsan ahkaamta ku saabsan ramadaanka waxyaabaha qofka ramadaanka ka burin kara waxyaabaha muxuu ahaa hadii uu sameeyo wax uu heli karo ajir far uu heli karo ahkaamtaas oo idil ee ramadaanka ku saabsan aad bay muhiim u tahay inuu bartaa marka waxa muhiim waxyaabaha kale adduunyada aad aragtaa dadaal iyo juhd dheeraad lagu bixinaya waxaa leeyahay tababar ma dadka la siinaya waxaa loo tababaray waxyaabahaas marka maxaa diiday cibaadada ilaahay si ilaahay uu kaaga aqbalo in koras aad qaadato ku saabsan ahkaamta ramadaanka ku saabsan ee cibaadadaada aakhirada ku hagaagayso inaad barataa ahkaamta iska saxdaa wixii ka khaldan muxuu aad umada weydiisaa oo culimada weydiisaa aad bay qaali u tahay haddii kale waxa laga yaabaa in waqtigan uu ku seego cuntadii cabitaankaaga xalaasha aad ka tagto hase yeeshee waxa aad wadidii cibaadadaada aysan noqonin cibaadadii nabiga calayhi salaam loogu dayanay ee nabiga uu leeyimid calayhi salaatu wasalaam qodobka sideed wuxuu noqonayaa sidoo kale qofka inuu diyaar garo qaab nafsi ah inuu u diyaar garo qofka in muxuu nafsadiisa u diyaariyo waa muhiim waliba muxuu waxa la rabaa bisha muxuu ramadaanka gudihiisa dadka muxuu inuu isku day inuu diyaar garo waxa ka qurux badan sida nabiga calayhi salaam saxaabtiisa ay ahaan jireen bisha bilaha muxuu rajab iyo shacbaan xilligaas la rabaa nafti la soo tarbiyeeyo oo naftaadii oo naf tarbiyeysan oo hagaagsan ah in bisha ramadaan ay ku timaado waad ka faa'iideysan kartaa hase yeeshee seedaanka muxuu dhibaato badan iyo nabarro badan u geystaa qofka intuusan ramadaanka imanin ka hor marka waxaa muhiim in muxuu maadaama shayaadiinta iyo wax walba ilaahay uu inaga xirayo ramadaanka intaan la gaarin ka hor waa inaan si nafsi ah u diyaar garoodo waa muhiim diyaar garowga uusan noqon kaliya cunno iyo cabitaan la soo diyaarsado oo muxuu xilliyada ramadaanka uu soo dhaweeyaa suuqyada dhan mashquul ka jira aad moodaysa in la bishan waa bishii cunnada in la yiri oo ka moodaysa sida ma hawlaalayaal waxa la rabaa bishan waa bil cibaado ah looguma talagelin cunno iyo caawan in lagu soo jeedee waxa la rabaa cibaado ilaahay in habeen imaan lagu soo jeedo oo quraanka la akhriyo oo bisha laga faa'iideysto saas loogu talagal marka waa inaan si nafsi ah qofka nafsadiisa uu diyaariyo uu tarbiyeeyo ramadaanka marka waa ka faa'iideysan karaa sidoo kale inaynu kaga faa'iideysano bisha barakeysan ramadaanka khayrka iyo dacwada ilaahay inaynu kaga faa'iideysanaad bay muhiim tahay khayrka waxyaabaha wanaaga ah khayrka in laga faa'iideysto sidoo kale waxaa muhiim bishan waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay bishii tawbada ilaahay ku tilmaamay shahru tawba shahru almaghfira ayadana waxay mudan tahay inuu ilaahay dad qofka shakhsiga ah muxuu inuu ilaahay u laabto ilaahay u tawba keeno waxa la yaab leh hadduusan qofka ramadaanka ilaahay uusan u laabanin oo bishii ilaahay dambiga uu dhaafay oo raxmadii naxariista ay socotay hadduusan ilaahay u laabanin oo dambiga uusan ka tawba keenin goormuu qofka tawba keen rabaa waqtigu uu doonayaa qofka inuu tawba keeno maadaama mawsimka cibaadada ah oo khayriga ah uu seegayo marka taayadana waxa muhiim inaynu kaga faa'iideysano bishan inay dambiyadii aynu soo galnay faalxumadii aynu soo geysanay waa bishii ilaahay uu naga dhaqi lahaa
وبشي إلهي مغفرة يدنب داف ومد وسين لها وبشا إلهي سبحانه خيرك وناك غفرها بدن وقلي سيدا أقول وحا مهمة قفك مسلمك إن بشا أنا لقى فائدستو إلهي سبحانه وتعالى الله لابتو مركا نفتيدا يتينبا وعن دارما إن رمضان كإنو ديار قروبنا ومحوها نفسدينا إنو ديارنا وبالعبادة بالعنم إن عبادة اسكو ديارنا ومحوها السوجيد iyo quraan akhris in la isku diyaariyo waxa ilaahay ka rajeynaa insha Allah inuu ilaahay ramadaanka inuu bad qabno ilaahay una gaarsiyo kuwii ka faa'iideystaan Allah naga dhigo wa jazaakumullahu khayr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh